daawadayaal kusoo dhawaada Saxafi Films Channel oo idiin soo gudbisa taariikhaha jilayaasha caanka ee dalkaasi India ka soo jeeda kana mid ah jilayaasha filimada ku sameeya shirkadaha Bollywood. barnaamijkan waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa jilaaga rugcadaaga Anubam Khair ay Soomaalidu u taqaano lacag. Anubam Khair waxa uu dhashay 7 Maarso 1955 waxa uu ku dhashay magaalada Shimla ee Himachal Pradesh, India. waxa dhalay Busla Karnafi Khair oo ahaa nin ka shaqeeya karaanina ka hortaga xaalufinta dhirta dalkaasi India. hooyadiis waxaa la dhahaa Dulari Khair, waxay ahayd hooyo guri jooga oo xaafadeedii caruurteeda u shaqeysata. waxaa la dhashay hal wiil waxaana la dhahaa Raju Khair. haddaan waxbarashadiisii soo qaadano, waxbarashadii dugsiga sare waxa uu ku qaatay DAV School ee magaalada Shimla. kadib waxa uu galay Punjab University ee magaalada Chandigarh. digriga ugu dambeeyay waxa uu ku qaatay oo xagga waxbarashada ah National School of Drama, waxa uuna ku takhasusay sameynta sheekooyinka masraxa. inkastoo Anubam Khair uu ku dhashay magaalada Shimla, haddana asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa reer Kashmir. neenaasaha loo yaqaano waa ay jiraan, balse Anubam Khair ma ogola in magacyadaasi loogu yeero. dhererkiisu waa 1.70 m, miisaankiisu waa 72 kilo, indhihiisu waa dark brown cafe zaa'ida. cuntooyinka uu aadka u jecel yahay waxaa ka mid ah Kashmiri dumna olay iyo rajma with rice. maqaaxiyaha uu aadka ugu cunteeyo oo Anubam Khair laga helo waxaa ka mid ah maqaaxida Sampan Restaurant ee ku taalla xaafadda Juhu ee magaalada Mumbai. balwadihiisa idima caddayn karto inuu Anubam Khair wax balwada leeyahay. atirishooyinka uu aadka u taageero Anubam Khair waxaa kow ka atirishada Vidya Balan. atoorayaasha uu aadka u jecel yahay waxaa kow ka aktarka caanka ee Robert De Niro iyo jilaaga daada yar ee Ranbir Kapoor. heesaha uu aadka u jecel yahay waxa uu dhageystaa heesaha qaaraamiga ah. waxaa kaloo uu aad u jecel yahay inuu buugaagta akhristo. diinta uu haysto Anubam Khair waa diinta Hinduismka. haddaynu xaasaskiisa wax ka taabano Anubam Khair waxa uu markii hore guursaday Madhu Malati, kadibna waa ay kala tageen. waxa uu haddana guursaday Kiran Khair. markaan dambe ee uu guursanayo waxa ay sidatay wiilka Sikandar oo ay u dhashay ninkeedii hore ee Gautam Peg. ha yeeshee Sikandar waxa uu wataa magaca Anubam Khair, waxaana magaciisa la yiraahdaa Sikandar Khair. Anubam Khair intuusan fanka soo galin ka hor waxa uu la kulmay caqabada aad u adag. maadaama Anubam Khair uu aad u jeclaa xagga jiliinka, waxa uu riwaayado badan ka sameeyay jaamacaddii uu dhiganaya ee Himachal Pradesh University oo waqtigaasi uu ardayda aadka wax inay jiraan aadka u jecel uu ka mid ahaa. sanadkii 1982 ayuu filimkiisii koowaad sameeyay Anubam Khair, wuxuuna ahaa filimkii Agman. sanadkii 1984 ayuu haddana sameeyay filimkii labaad ee Saransha. waqtiga uu sameynayay filimka Saransha da'diisu waxay ahayd 28 jir, waxa uuna filimka ku jilay aabba wiilkiisii ka lumay. intaas kadib fanka ayuu sii watay. sanadkii 1986 waxa uu wax ka jiray filimkii Karma. doorkiisuna waxa uu ahaa laadirnimo. haddana waxa uu sameeyay sanadkii 89 filimkii Daadi. ammaan badan ayuu ku helay, abaalmarinana waa uu ku qaatay. wixii intaasi ka dambeeyay waxa uu soo saaray showgiisii uu ugu magac daray Anubam Khair Show Kuch Bhi Ho Sakta Hai, wuxuuna barnaamijka ku casumay Shah Rukh Khan oo ka ahaa qayb weyn. filimada uu sameeyay kuwii ugu caansanaa waxaa ka mid ahaa filimka Dilwala Dulham Le Jayenge, Chahat Kuch Kuch Hota Hai, Mohabbatein Virazar, Happy New Year.
wuxuu haddana bilaabay inuu directornimo sameeyo wuxuuna director ka noqday 2002 filimkii Om Jai Jagdish. Producer ayuu haddana u wareegay waxa uu haddana producer ka noqday soo saare Meingandi Ko Nahimara. ugu dambeyntii waxa uu madax ka noqday Indian Film Censor Board. Anubam Khair waxa uu wax ka jiray in ka badan 500 oo filim waxaana filimadaasi kamid ahaa Hollywood Films ee dalkaasi Mareykanka. filimkii koowaad ee Hollywood uu sameeyay wuxuu ahaa filimkii Bend It Like Beckham oo soo baxay 2002. waxa haddana uu sameeyay filimka Luster Caution 2007. waxa uu haddana sameeyay filimkii Silver Linings Playback oo 2013 uu wax ka jiray. Anubam Khair 5 jeer ayuu qaaday Best Comic Actor actorkii ugu majaajilada qurxoona ama actorkii ugu shactirada badnaa. Anubam Khair intuusan fanka kusoo biirin kahor waxa uu la kulmay dhibaato xoog leh sidaan horeba idinku sheegnay. taasna waxa ku qasabtay inuu Anubam Khair uu aad u rabay inuu mar qura fanka ku beero balse waxa uu bilaabay markii riyadiisii ay carqalado badan ka hor yimaadeen inuu seexdo wadooyinka tareenka si uu dunidanba uga tago maadaama uusan helin hamigii uu aadka u jeclaa. balse ugu dambeynna si wanaag waxa uu ka mid noqday jilayaasha Bollywoodka kuwooda ugu maqaamka sareeya. ugu dambeynna Anubam Khair waxa dawladda India ay guddoonsiisay abaalmarinada kala ah Padma Shri oo ay siisay sanadkii 2004 iyo abaalmarinta kale ee Padma Bhushan oo 2016 la siiyay. sanadkii 2016 bishii Janaayo ayaa Khadar Khan yiri oo bartiisa Twitterka soo dhigay waxaan la yaabalahay dawladda India waxa ay ku siisay bila sharafta Padma Shri Anubam Khair muxuu qabtay maxay tahay dadaalka uu ku muteystay waxay ila tahay bilada uu qaatay buu Anubam Khair inay tahay bilad qasaartay. balse arintaas ayada wax jawaab celina kama uusan bixin Anubam Khair. isa sanadkii 2016 Anubam Khair ayaa bartiisa Twitterka sawir soo dhigay sawirkaasi oo markii dad badani ay arkeen duufaano iyo qayl ay cirka isku shareertay. sawirka uu soo dhigay waxa uu ahaa wiil yar oo reer Kashmir ah waxa uu soo dhigay wiil reer Kashmir ah oo meeyda kuna dhintay qalalaasi sagaashamaadkii ka dhacay Kashmir. dadka waxay Anubam Khair ku eedeeyeen inuu xaalad nacayb ka dhex abuurayo dadka reer Kashmir ee nabadda ku wada degan. taawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa taariikhdii Anubam Khair ama lacag ninkay Soomaalida u taqaano. waxaad naga daawanayseen Saxafi Films Channel. ha moogaanina inaad subscribe tirahdaan Saxafi Films si aad ula socotaan barnaamijyada kale ee waqtiyada soo socda aan hawada ku soo fasaxi doono. afkaartiina waa inaad inoogu reebtaan haddii Allah ugu dalraani ka noqdo qaybta comments-ka inagoo isku duuban waa baada Saxafi Films waxaanu idinkaga tagaynaa isma dhaafno is arag dambe oo xiiso leh. حسكيغا رجدا وابور حوكن درتا ونبيد الحجابي وقوم هلان حنمو عذا هميغيو حسكيغا رجدا وابور حوكن درتا ونبيد الحجابي وقوم هلان حنمو وروري سرتاد حنبارتين كأذنا عبكي حلوغا وروري سرتاد حنبارتين كأذنا عبكي حلوغا
حيدري مال حقنا ودي بالك يا حقالك سي أنا يا أمود الحصو ضرت سيدو يلمي حبيبتي